dhowaan waxaa baraha bulshada qabsaday in dowladda Jarmalku kumanaan askari u dirayso dalka Lithuania taasoo tustay inuu ugu dambeyn meesha ka baxay sharcigii Jarmalka ka xadidayay inuu ciidamadiisa u daabuli karo dal kale ama ka qayb noqon karo nabadeyn iyo dagaal midkood. kadib dagaalkii labaad ee adduunka bilowgii waxaa Jarmalka laga mamnuucay inuu ciidamada yeesho, balse sanadkii 1950yadii waxaa dalkaasi bilaabay inuu dhisto ciidan shacab oo awoodiisu xadidan tahay ka oo tiro ahaan dhaqaale ahaan iyo hub ahaanba sharciyo culus oo xadidaya dul oo laayeen. inkastoo maalinba tan xigta la sii khafiifinayay sharciyadaas, ugu dambeyn waxaa soo shacbaxday inuu Jarmalku door ku leeyahay howlaha nabadeynta qaaradda Yurub iyo xitaa dagaalada oo ciidamadiisu qayb ka yihiin difaaca Ukraine ee duulaanka Ruushka. mid kale oo qariib ah ayaa in baarlamaanka dalkaasi hadda ka doodayaan in billions of dollars lagu kordhiyo miisaaniyadda horumarinta ciidamada iyo hubka wadanka, taa oo welwel ku abuurtay dad yowga sheegta in lagu xasuuqay dagaalkii labaad ee adduunka iyo dowladaha isla kuwa garab jooga. xog kale ayaa dhahaysa in dadaalada dib u quwadeynta awoodda ciidan ee Jarmalku qayb ka tahay qorshaha wadamada qaaraddaasi ku doonayaan inay ku xoojiyaan awoodooda ciidan, maadaama Trumpka Mareykanku diiday inuu ilaaliyo Yurub waa sida uu yiri. sidoo kalena dunida oo dhami wajahayso cabsi la xiriirta dagaal nuclear ah oo kuwa sheegta quwadaha dunideena ka dhaxoogma.